بسم الله الرحمن الرحيم. walaalayaal dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalaha xawaadle meel kastoo ay joogtiin, salaantaas kadib maanta waxaan jeclaystay inaan kala hadlo arrinta duubka ugaaska oo aad dhammaantiin si wanaagsan la warqabtaan xaaladeedu meeshay marayso. waxaan rabaa inaan ku bilaabo ugaaska aan u madashannahay inaan duubno waa ugaaskii 22aad ee xawaadle u yeesho. waa boqortooyo ilaahay iyo xawaadle hadiyad u siiyey, soo jireen ah. ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtani beeshan ay ku qadariso kuna qiimayso boqortooyada soo jireenka ah ee qiimaha badan oo ay leeyihiin. walaalayaal, duubka ugaaska waa nagu fogaaday, muddo dheer u qaatay oo aan loo baahnayn. waa jirtay in dhowr mar sababa la dhihi karo waa loo qaateen dib loogu dhigay, sida colaadahoo kale, abaaraha iyo fatahaadaha iyo wixii lamid oo kale. laakiin maantay ma jirto baahida aan u qabno duubka ugaaska. wax naga baaji karo oo maanta taagan nooma muuqato. waxaa fiican in xawaadle aan baraarugno, aada loo baraarugo, waxa naga hadlaysan si fiican loo fahmo, sida ugu dhaqsaha badanne wax looga qabto. waa waxaan loo dul qaadan karin, nagu qurxanayn, dadku la yaaban yihiin sababta ugaaska xawaadle loo duubi laayahay ilaa waqtigan. ma raba inaan cid eedda dusha ka saaro, laakiin danta iyo howlaha ku xayiran ee xawaadle uga xayiran wax lasii dhowran karo aniga iguma muuqato. walaalayaal, eedo waa jiri karaa, xawaadle waa xaajoog karaa, laakiin cid isku xirtay ama la soo taagan inay isku xirmaan ugaaska duubkiisa iyo cabashada iyo tabashada la kala sheeganayo xawaadlaha dhexdiisa ma muuqato. waa qurxaneed iyadoo aan tabasho jirin aan wax jirin in ugaaska la duubto, laakiin boqortooyadii ka qaybgeli lahayd xalka in bannaanka lagu horo ee laga caajiso wax saxa maaha, wax la yskugu garaabi karana maaha. waxaa markaa aan rabaa inaan talo ku soo jeediyo dhalinyarada, haweenka, siyaasiyiinta, mas-uuliyiinta siyaasiyiinta ee xawaadle, dhaqanka, ganacsatada, culamaa udiinka, maanta inaan loo kala harin ee dhexda marada lagu xirto oo aysan nala dhaafin bishan febraayo dhexdeeda. waxaa kaloon talo kusoo jeedin lahaa qeybaha kala duwan ee bulshada inay bilaabaan cadaadis in la saaro dadka howlfulinta leh, in cadaadis la saaro dhaqanka, in cadaadis la saaro siyaasiyiinta xilka hayo, in cadaadis la saaro inti kale oo laisleeyahay fulinay leeyihiin. qof walbana kaalintiisa u qaato, laakiin maanta aysan nala dhaafin bisha february. howl badanaa taal,
beeshan colaad aada u qaab daran ayaa ku furan oo deyrkeeda dhaafida. marka inaan hoggaan ahaan la ahaano xawaadle wax qurxan ma ah. mar haddaa intaas yaraada waxaan jeclaa lahay in marada dhexda lagu xirto, in isbeddel muuqdo la sameeyo, in wixii khilaaf iyo howl kale oo taallo laga dhigto wakhtigeeda, laakiin ugaaska duubkiisa aan marnaba uusan dib u sii dhicin. waxay ogaataan hadduu dib u sii dhaco in wax badanna naga hallaabayaan oo noo qabsoomi lahaa. mar haddaan intaas iraahdo waxaan jecelahay inaan dhammaantiin mar labaad isalaamo, dardaarankaasna aan isku ogaano, iskagana warqabno. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa mahadsantiin.